geerida timiyay xaq baa tahayo talada rabbi baa dhimasho tebise tanise urugiyo tiiraanyo badna. Fresh fish right from the ocean. Oh my god, Somalia had no laptop. Somalia no laptop. What thinking no laptop? Adowgeena hajo. Hajo. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي سبحانه وتعالى هو نحريستو ريادا مقليسين وكوي وجودن بيي سديد 8 ساعة 9 ساعة كهر أي دوبتي ولاشين هضن. إلهي سبحانه وتعالى هو نحريستو waxay adduunka kaga tagtay labada wiil ee quruxda badan waxay ahayd hooyo aad iyo aad u adag waxaana lagu xasuusan doonaa wanaagga iyo farxadda ay ka shaqeyn jirtay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryayaa awlaadda inuu xifdiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu jannadiisa siiyo. Hodan way dhimatay laakiin quluubteena ayay weli ku nooshahay. hodan waxaa lagu xasuusan doonaa wanaagga iyo farxadda dalkeena ay dadka bari jirtay. muuqaalkan ina muuqda waa magaalada Laascaanood mar ay joogtay waa mar aan saas u sii fogeyn ayaan dhawid ay ahayd waxayna ka soo duubtay muuqaalo aad iyo aad u qurux badan oo ku jeclaysiinaya dalkaada hooyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala u naxariisto. mar walba ay dalka tagto waxay soo sawiri jirtay ubadkeena quruxda badan ee mustaqbalka qurxoon sugaya waxay ku abuuri jirtay farxad. hodan waxay ahayd dhiirigeliso dadka la wadaagta khayrka iyo wanaagga. waa gabadhii keentay hashtag la yiraahdo naag iska dhig oo ahaa hashtag aad iyo aad looga helay dad badanna isticmaali jireen. ujeedkiisana wuxuu ahaa inay dhiirigeliso garab istaagto dumarka Soomaaliyeed isla markaana ay tusiso inay awood leeyihiin. waxay runtii ahayd mid mar walba dadka la wadaagta ee dhiirigelin aad iyo aad u fara badan waxaadna ka akhrisan kartaan ama ka dhahan kartaan baraheeda social media. hodan waxay ahayd mid nafteeda u hortay siday u muujin lahayd dadkana u tusi lahayd dalka wanaagiisa. waxay tagi jirtay miyiga waxay la kulmi jirtay dadka waxayna ahayd qof qalbi furan mar walba qosli jirtay. geerideedii wadnaha ayaa nala gariiraya runtii aad iyo aad ayaan uga naxnay ogana xumaanay waxaanse ku xasuusan doonaa wanaagga iyo khayrkeena uga tagtay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. geerida hodan aad iyo aad ayay anigii saameynaysaa maxaa yeelay xiriir ayaa naga dhexeeyey walaaltinimo ah waxayna ii soo tahniyeysay markii arooskaygii fariinta hadda ina muuqata ayay soo qortay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa ayada iyo ninkeeda inuu jannada ku kulmiyo dhammaanteena uu nagu kulmiyo. hodanay kuma hilmaami doono geeridaadii qalbiga ayaa la gilgishay indhuhuna way la ilmeeyeen. halkani waa hodan oo badda Soomaaliya dhex fadhida quruxdeedana tusinaysa wadankana jeclaysiinaysa. waxay u ahayd tusaale ummadda Soomaaliyeed. runtii waxaa la oran karaa hodan mar walba waxay ku dadaali jirtay inay dalkeena kor u qaado niyad ahaan iyo macno ahaan mar walbana na tusiso. waxaa la xasuusan doonaa awlaadii la fadhiisan jirtay. halkani waxay la fadhidaa caruur badan oo ay shaaha u shubtay oo ay la sheekeysanaysay oo ay video ka duubtay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigeed ha dhaafo. qof kastoo hodan yaqaanay ama aan aqoonin wanaag ayuu u qirayaa. geerideennina saameyn ayay ku yeelatay dadka. walaalayaal qof walba uu dhimanayaa laakiin geeridu way kala xanuun badan tahay.